bismillaahi araxmaani iraxiim kusoo dhawaada jaalka maalmaha. waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aada u xiiso badan. qisadan waxay ku saabsan tahay faa-iida ay leedahay waxbixinta iyo sidoo kale alla kacabsiga. qisadan ayaa waxay dhex martay haweeney waayeel ah iyo nin boqor ah. nin boqora ayaa wuxuu go-aansaday inuu masjid dhiso, wuxuuna dadka u sheegay in ruux kale uusan waxba ku darsan karin dhismaha masjidka. boqorkii wuxuu dhisay masjid aada u qurux badan. kadib markii uu dhammeeyey dhismaha masjidka ayuu wuxuu ku qoray magaciisa si loo ogaado inuu isaga dhisay, dadkuna ay u ammaanaan. muddo kadib boqorkii isaga uu hordayo ayuu habeen wuxuu ku riyooday masjidkii oo magaciisa laga tiray, islamarkaana lagu qoray haweeney waayeela magaceeda. kadib hurdada ayuu kasoo toosay, markaasuu wuxuu ciidankiisa ku amray in masjidka lasoo fiiriyo, islamarkaana lasoo ogaado in magaciisa laga bedelay in kale. ciidankii markii ay tageen waxay arkeen magacii boqorka oo ku qoran meesha. kadib way u yimaadeen waxayna ku yidhaahdeen, waxaad ku riyootay waxba kama jiraan, magacaaga ayaa ku qoran masjidka. habeenkii labaad boqorkii markii hurday ayuu mar kale wuxuu ku riyooday magaciisa oo laga fujiyey meesha, magac haweeneyna lagu dhejiyey. hurdada ayuu kasoo toosay, wuxuuna ciidankiisa ku amray in lasoo fiiriyo. markii ay tageen ciidankii sidoo kale waxay ku arkeen magaciisa ku qoran. kadib habeenkii saddexaad ayuu sidoo kale ku arkay islaan magaceeda oo lagu dhejiyey meesha, balse markaan wuxuu isku dayey inuu magaceeda qabto. markii waaga bari ayuu wuxuu yidhi, haweeneydan halay soo raadiyo. ciidankii waa ay soo raadiyeen. kadib waxay soo heleen haweeney waayeela oo faqiira oo meel bannaan iska joogto, waxayna u keeneen boqorka. haweeneydii markii boqorka aragtay aad ayay u naxday, waxayna tiri, maanta maxaa halkan lay keenay? boqorkii wuxuu ku yidhi haweeneydii, masjidkan dhismihiisa wax miyaad ku darsatay? waxay tiri, maya, aniga waxaan ahay qof maskiin ah oo faqiira, waxna ma haysto. waxaana ogaa inaad amar ku bixisay inuusan qof kale waxba kugu darsan karin. kadib wuxuu yidhi boqorkii, alla ayaan kugu dhaariyay, maxaa samaysay ii sheeg. waxay tiri, waxba ma aanan samaynin, balse maalin aniga oo waddada maraya ayaan waxaan arkay faras ka mida fardaha alaabta lagu soo qaado oo geed ku xiran, aadna u haraadsan. waxaana agteeda yaala weel ay biyo ku jiraan, mana awooda inuu cabo biyaha meesha yaallo. biyihii ayaan u soo dhaweeyey, kadibna sida ayuu ku cabay. waxay tiri, wallaahi aniga inta oo keliya ayaan sameeyey. boqorkii aad ayuu u xishooday, wuxuuna yidhi, arrintan waxaad u samaysay alla dartii, allana waa uu ka aqbalay. balse aniga markii aan masjidkan dhisayay waxaan u sameeyey in la yidhaahdo boqorka masjidkiisa, allana igama aqbalin camalkii aan sameeyey. wuxuu amar ku bixiyey boqorkii in masjidka magaciisa laga fujiyo, islamarkaana loo qoro haweeneyda magaceeda, maadaamay camalkeeda u samaysay alla dartii. qisadan waxaynu ka faa-iideynaa camalka alla dartii aan loo sameynin inuu noqonayo mid aan la aqbalaynin, maxaa yeelay alla ma aqbalo camal aan wanaagsanayn. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gamaalkana reex si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.